runtii maanta waxay ahayd maalinta furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka 11aad runtii khudbadaha taariikhiga ugu weyneed khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dastuuriga ahayd oo runtii meelo badan iyo maxay tole boontiye badan oo muhiim u ahaa hortabin u leh ka xukuumad ahaan aan ku shaqeyn doono uu ka dhawaajiyay ama uu ka sheegay anaguna insha Allah waxay noo ahaan doontaa hadafyo ama hortabino waaweyn aan ku shaqeyn doono runtii waxyaalaha ugu muhiimsan ahmiyadaha ugu waaweyn aan dhihi karo waxa kamid ahaa dhamaystirka dastuurka qabyada ah ku meel gaarka ah sida uu noqon lahaa dastuur dhameystiran saas lamida dastuurka saad ogtihiin dhamaystirkiisa waxay muhiim u sii tahay dhamaystirka geediga dawlad dhiska Soomaaliya waxay muhiim u tahay xanaanka cutubyadii hore la soo ansixiyay dhamaystirkiisa ama kabkiisa maxay yeelay ma hirgeli karto ama ma shaqay karto hadii aynan maxal dastuurka la dhameystirin runtii waa cutubyo waaweyn oo iskaabayo saas lamida runtii waxa ayaduna qayb ka ahayd khudbadda madaxweynaha dib u xoreynta dalka oo ayaduna qayb muhiim ka noqon doonto dastuurka markii la dhameystiro dalku wuxuu aadi doonaa haduu la yiraahdo dhawaan doorashooyinka heerarkiisa kala duwan ee saddexdiisa heerka dawladaha hoose heerka dawladaha dhexe amin dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo dawladda heer federaal dhamaantaas marka waxay muhiim u yihiin asal muhiim ah wax la yiraahdo amniga dalka ama xasiloonida waxa meel fiican maraya dhawaan insha Allah wajigiisa saddexaad bilaabmi doona dib u xoreynta dalka cadowga oo mataqaana laga xoreeyo ayaduna waxay u tahay muhiimad kale oo gaar ah fariinteeda dhalinyarada aan u sheegay waxay tahay dhalinyaro cidda koowaad ee muhiimadda ama cidda koowaad ee danta koowaad qabi doonta doorasho qof iyo cod waa dhalinyarada aan anigu mataqaana odayga u ahay saas darteed waxaan rabaa dhalinyaradu inaan ku dhiirigeliyo inay aadaan isdiiwaan geliyaan kaararka national ID qaataan sidaas lamida markay national ID qaataan ay u diyaar garoobaan inay qaataan kaararka codbixinta waxaan leeyahay dhalinyaro hadii waayadii hore nalagu qasbi jiray danadan dooran haday nalagu qasbi jirna hogaamin jiran dad annaga aynan dooran maanta codkeena aan ku cilbaxno annaguna ay soo sharaxno annaguna majaraha iyo mansabyada waaweyn aan u soo istaagna dhalinyarada waxaan leeyahay si lagu doorto aad waxna u doorato noqo muwaadinka koowaad ee qaato national ID noqo muwaadinka qaato kaararka codbixiya dhalinyarada waxaan leeyahay fursada koowaad annaga noogu jirtaa aan u soo wada diyaar garoon dhamaanteen aad u mahadsantiin